taliska ATMIS ayaa ku dhawaaqay inay qaadayaan tallaabo ay ku xirayaan xerada Xalane inta u dhaxaysa 10 ilaa 16 bishan Abriil sabab ay ku sheegeen inay sameynayaan baaritaan culus oo gudaha xerada ah. qoraal ka soo baxay ATMIS oo loo diray safaaradaha caalamka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in la joojinayo dhammaan shaqooyinkii ka socday xarunta waxaana la xiri doonaa dukaamada iyo goobaha ganacsi ee Soomaalida iyo kuwa ajnabiga. sidoo kale waxaa la xiri doonaa goobaha lagu dhaqo baabuurta iyo maqaayadaha. ATMIS waxay howlgal amni ka fulin doontaa saldhigga 10 ilaa 16 Abriil si loo ogolaado hubin amni oo midaysan. xerada waxay geli doontaa xayiraad buuxda muddada kor ku xusan ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay taliska ATMIS. wararka qaar waxa ay sheegayaan in ujeedka ugu weyn ee qorshahan ay tahay oo kaliya sidii loo baajin lahaa dhaarinta xildhibaanada cusub oo loo madleeyahay 14 bishan. dhaarta ayaa qorshuhu ahaa inay ka dhacdo xerada Afisyooni oo ka mid ah meelaha ay xirayaan taliska ATMIS. waxaana tani caqabad ay ku tahay qorshaha guddiga fiid iyadoo aan la ogeyn sida ay wax isu bedeli doonaan maadaama Xalana dib loo furi doono 17 bishan. arrimahan oo idil ayaa ku soo beegmaya xilli khilaafka midowga Afrika iyo ra'iisul wasaare Roble oo cirka isku shareerayo kadib markii Roble uu soo saaray warqad uu dalka uga eriyay wakiilka midowga Afrika Francisco Mondera. tallaabadaasi oo ay iska diideen midowga Afrika. balse wasaaradda amniga gudaha ee Soomaaliya ayaa fartay hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya inay kala laabato waraaqaha dalku galka Danjira Mondera. khilaafka ka dhashay go'aanka ra'iisul wasaare Roble dalka uga eriyay Danjira Francisco Mondera ayaa u muuqda inuu caqabad kale ku noqday dadaaladii socday ee lagu soo gabagabayn lahaa doorashooyinka xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya oo muddo dheer soo jiitamayay. tiyo ay weli jirto inaan weli wax hal ah loo helin go'aanka koonfur galbeed xildhibaanadu ku qaadaceen inay qaataan shahaadada guddiga fiid. dadka ka faalooda siyaasadda ayaa sheegaya in tallaabadan ay qaadeen taliska ATMIS 24 saac ee la soo dhaafay ay tahay mid culays lagu saarayo ra'iisul wasaare Roble oo dad badan ay aaminsan yihiin in khilaafka kala dhaxeeya madaxweyne Farmaajo dartiis oo u qaatay go'aanka uu dalka uga eriyay Danjire Francisco Mondera.